bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaasha qiimaha iyo qayaha leh ee wadani tv la socdo waa barnaamij aad u qiimo badan oo aan idinkugu talagalnay oon ugu magacdaray xukunka dadka waalwaalan ee dalka Soomaaliya xal u helista xukunka dadka waalwaalan ee dalka Soomaaliya waa barnaamij maxkamad la saari doono magaalooyin badan oo Soomaaliya ah oo dhibka ay ka jiraan waxaan ka afafanaynaa anagu waxaan nahay wadaniyiin qadiyada dalka iyo dadka diinta u taagan waxaan jecelnahay nabad Soomaaliyeed iyo dalka mar kale qaran ku istaaga waxaan dadka tusnaa dulucyada ay dhibka ka jirto cidna anagu uma samaysano laakiin si inta uqdada iyo qabiilka dishay waxay u qaadan karaan dhinaca xun inta wanaaga iyo sharafta iyo wadanimada qadiyada dalka dadka ku beerana waxay dareemi karaan in aan xalka rasmiga ah u sheegno oo wax ku qaadan karaan halkaana dawada ka raadin karaan taasoo micnahaygu uu yahay in aan lahayn anagu sideedada banaanba Soomaalida ay tahay dadka ugu runta necab ee adduunka boqolkiiba 89 11 ayaa runta jecel runta in loo sheegana ma ay ogola sida daraadita annagana runta kama daahano wadani tv wuxuu u taagan yahay shanta qadiyada dalka Soomaaliyeed oo aaminsan in mustaqbalka ay midoobi doonaan haddaba dhageysta dhibka meesha Soomaaliya ka jiro ee xukuumadda dadka xal u helista xukuumadaha dadka waalwaalan ee dalka Soomaaliya barnaamijkani waxaa ka soo qayb galay magaalooyin Soomaaliya ka mid ahi hamoodin inaan ka tagnay barnaamijkan uu socon doonaa kuwa kalena waa ku soo qaadan doonaa qaybtiisa hore ayaan sidan ku bilaabaynaa waxaa qaybta hore ka qayb galayo xaakimka maxkamadda oo dhageysanayo Burco Hargeysa Xamar Boosaaso Hiiraan Galguduud Muqdisho Hargeysa Hiiraan Galguduud Boosaaso iyo Laascaano iyo Boorame haddaba dhageysa haboon maxkamadii waxaa ku bilaabaynaa oo maxkamadda la weydiinayaa inta kale intaan horta marka hore la hadlin bal Somaliland oo ah Hargeysa bal inaad dhageysataan waxa ay doonayaan way ka soo qayb galeen maxkamadda dadka goboladan doodahaya ee magaalooyinka marka bal dhageysta marka hore marka kartoonka oo labada qof ee bidixda u taagana waxa ay ku bilaabayaan Hargeysa oo xaakimku weydiiyay bal horta idinka maxaa uga soo qayb gasheen aad Soomaalidan uga soo dhax gasheen iyo waxay way dhihi doonaan annagu waxaan ka nimid Somaliland waxaan rabnaa madax banaani buuxdo itiraaf Soomaaliyana ma doonayno marka saasaan rabnay inaan yaa idinku xalkiina lama heli karo ee dhaafa Soomaalida kalaan tashanayna idinka cirka ku jirtaana waa duulaysaane sidaas nagu daaya bal intanada kala xal ah heleetiina daawalidiina lama daweyn karo waa xadaaf way naga weyn tahay marka duulimaadka cirka ku jirtaana cirkiina iska aado oo iska duuduula meelahaasiito saasun baa hadda annaga nala quman intan kale baa dawo loo helayay dawadiina inta kale ayaa markaa ka tashan doonto waayo waan duulay waan tagnay nabadgelyo adiguna haddana waxaa loo yeeray maxkamadda la dhageysanaya Boosaaso ama Puntland hadda sida aad u taqaanaan Puntland oo hadalkiisii furtay waa kan iyo wax uu tabanayo sheeganayo annaga Boosaasan ka nimid iyo Puntland mana laga yaabaro inay Soomaaliya degto inaa xukuumadda annaga gacanta ku dhigna mooyeene amaba dagaalkaas sidaa unbuu ku soconayaa koonfurta annagana nabadaasan haysanaynaa iyo ismaamulkaasiitu mana laga yaabano masaasaa damcadeen inaa weligii ku jirta Soomaaliya waa anaga dhab ilaa waa sida ama xukuumadda inaan qabsano markii ay wax dhisanayaana sidii Sariif Shakiin oo kala mid aan soo dirta ayaa kala tuuraya waxaan oo dhan Soomaaliyana weligeed inay degto ama mar rabno ilaa annaga aan xukunka ka qabsanayno ujeedadayadana waa sida haatana sida aad aragtaan barnaamijkii weli socdo waxaa la dhageysanayaa oo miiska lagu soo dhaweeyay mikrofoonka Hiiraan bal waxay sheegtay ayaa in la dhageysanayaa waata Hiiraan oo hadashay
annaga haddaan beled weyne ka nimid ama hiiraan dhibaataana haysato waxaan nahay marin axmaarada iyo al-shabaaba kuwa kolbaana sii dhaafa kuwa kolbaana soo dhaafa waana nagu sii tuntaa waana nagu soo tuntaa war dhibaaba idin haysta ilaahayaa idinka bixiyo dhibkaas war anagu rafaadka iyo dhibkaasaan ku jiraayo haddaba maamul isku kaba kagabanayna haddana waxaa isku keenaysa Itoobiya oo sidaa ayaa lala iyo al-shabaab xagga lugta nagula jiriyo war anagu waxaan noqonay xalaq marayn war rafaadsannahay haddana waxaa mikrofoonka lagu soo dhaweynayaa galguduud ama mudug hadba sida aa u taqaanaan maamulkooda waana kan isagoo hadlahayo galguduud waxaa ilaadaan dhageysano annagu markii hore tabaniyo dagaalada ayaan u urulin jiray waa dagaalo badan Soomaaliya waa ku baabaanay waa ku rafaadnay waa ku soo ururiyaa min nabad wax dhama ayaan weynay marka hadda waxaaba go'aanaga inaan isku soo urursanay oo nabad qaadino marka maamulnaan dhisrabno kuwa tan weyn wadaada ayaan u yimid oo adduunka ka dambeeyo oo maalin kale iiday ayaaba noo yimid adduunka ka sii dambeeyay ciidiisa qola meel kuwa yaab anaga waa la yaabnay ciida xilliga ciidayna waa khayran ku rajeynayaan oo tawa arkaa rafatantii